ولنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان بعد كحران أبيكتيج كسر دواو أبيكتيج بعد السلام ما أنت مقالكينا وحن إذن كسيدا سيدا الله حرين لها بوليسي إيشيوغا ودنك إيكا هايستو لعاقاها موديسيشن بوليسي إيشيو هادو ألا يرادو مركب ما أنت مقالكينا وحن كوفا فاهن دونا هادو ألا يرادو سيدا هالكان كاقا موقاتو ماشان موديسيشن كاس policy issue sida ujeeda limited originality of contacts qaababka loo xalin lahaa iyo hababka aad u mari lahayd iyo waxa lagaaga baahan yahay in channel page-kaaga oo Facebook-ka sare u qaadno insha Allah intaan muuqaal gudgelin fadlan waxaan ka codsanaa in muuqaalka aad inuu la gareysi sidaas la mid ah asxaabtada la sii wadaagtid adna haddaad ku cusubtahay channelka aad subscribe saaratid muuqaalkood faahfaahsan aan isla daawano ina keena marka ugu horeyn horta waxa u baahan tahay page-kaaga Facebook-ga inuu maaragtay aanan ku dhignayn copyright cc midalda cc copyright waa iyadana like copyright claimant iyo cc marka labadoodu way kala duwan yihiin. copyright claimant xanuun badan, cc-ga caadi waa mid aad iska qaadi kartid, waa muuqaal walba lagu qabtaa laakiin muuqaalo yar ay iskugu qabanin, waa waxa aad iska xiri kartid meel laba option on ku ah off la dhigi doonto hadoo la yiraahdo. marka muuqaalka maanta waxaan idinkugu wadaagi doonaa dhowr optionadaas oo ah in maaragtay aad u baahan tahay application Google Chrome. applicationka Google Chrome ayaa tagi doontaa, kadib waxaad ku qori doontaa Creator Studio sida halkan kaaga muuqato. Creator Studio marka ku qoro habkan ayuu isoo qaban doonaa meeshan ay idinkaga muuqato Creator Studio Facebook Business Manager ku dhufo. marka sidan ugu dhufatid habkan ayuu u wareegayaa, labadan option ayuu ku soo saarayaa. kan waa application kooda la dig ayuu ku dhahayaa, kanni waxaad isticmaali doontaa way continue on desktop versionka desktop ayaan isticmaali doonaa. qaybtan hoose ayaa anaga u baahanaa, qaybta hoose ayaa ku dhufan doonaa. sida markuu noo noqdo meeshan ay ku qoran tahay go to the full site aad ku dhufan doontaa. go to the full site marka ku dhufatid habkan ayuu u wareegi doonaa haduu la yiraahdo. marka wuxuu noqon doonaa sida halkan kaaga muuqato desktop site ayuu noqon doonaa. desktop site noo ah page-ka aad rabtid ayaa xulan doontaa. markaas page-ka aad rabtid markaas sidan u xulatid page-kaas aladaha iyo wixii haysto ayaad ku ogaan kartaa. sida halkan kaaga muuqato page-ka aan hadda xushay waa Abeektiij waaye, midka kalena Abeektiij waa ku qoran. marka Abeektiijkaas ayaan tagi doonaa. sida marka u tago meeshan ku qoran tahay policy issue qaybtaas hoose modification marka joogtid policy issue ayaa ku xulan doontaa. ana hadda sida halkan idinkaga muuqato wax cilad ah iguma dhagno, wax modification laga rabo ma jirto, dhan waliba waa iska xaliyay, way iga xalisan tahay oo wili aniga burmudku ma ana sameeynin. dad badan oo burmudku sameeyay ciladaas haysataa jirto. waxaan kula wadaagi doonaa 4 shay oo lagaaga baahan yahay inaan Facebook-gaaga aad ku ilaalisid hadoo la yiraayo. horta waxaad page-kaaga haddaad u baahan tahay in maaragtay oo waxyaalahaas uu ka tago waa inaad horta page-ka u sameysaa taxane waa taqaanaa oo waa barnaamij soconayo inaad u sameysaa. sidaas la mid ah ku dar qaraxii taxanaha abuurista qarax markii maqashin Soomaaliya diinay qarax wax maankii oo qaraxa ma waayo muuqaalka markaas maaragtay oo dad bulsho weyn oo u baahay ayaa soo qaadinaysa clip-ya ka soo qaadinaysa, waxa ku dareysa muuqaalka markaas aad soo upload garay doontid ama soo post garay doontid insha Allah. qodobkan saddexaad ku dar fiidiyoyada marka hore la soo geliyay muuqaaladaada waayo tii hadda ay la mid tahay waxaad ku dari doontaa taxanaha qaraxii abuurista. kana waxa waaye ku dar fiidiyoyadaada mar hore oo la soo geliyay YouTube Facebook-gaaga page-kaaga. qodobka saddexaad sidaas ayaan isla dhaafnay. qodobka afraad
qodobkan afraad waa qodob aad iyo aad u muhiim ah oo dadka dhan isweydiinayaan, maxaa oo copyright keeno, maxaa oo maaragtay cc gas keeno. Bal waxaan kula wadaagi doonaa qodobka ugu dambeeyo. Muuqaalka waa inuu noqdaa muuqaal aad adigu samaysatay oo adiga aad leedahay, wax muuqaal meel kale ka soo qaadatay oo qof uu leeyahay hadhowtii oo report uu ka gudbin karo. waa laga fiican yahay waxa aad leedahay aad samaysatay inaad maaragtay ku soo upload gareysid Facebook page-kaaga. maadaama afartaas qodob aan kula wadaagay, waxaan jeclaystay qaab yar oo farsamo ah inaan ku tusiyo. qaabkaasni waxaan kula wadaagi doonaa isla anagoo joogno Creator Studio. waxaad tagi doontaa meeshaan ay ku qoran tahay, haddaan kuu soo dhaweeyo, meeshaan ay ku qoran tahay published. mar haddaa maqashid waa waxyaalaha aad page-kaaga soo gelisay. published markaa ku dhufto, xoogaa yar uu iswareejin doonaa. markuu sidan isku wareejiyo, qaabkan ayuu kusoo saari doonaa. sida halkan kaaga muuqato, waa soo gelisay meel yaraa waxaa kaa tusinaya copyright-ka iyo meelahaas laga arko. anaad muuqaalo horta copyright iguma jiraan, laakiin cc waa ka buuxaan saan jeclahay, waayo meelahaas ma xirxiro. marka waa isla fiirin doonaa hadduu la yiraahdo cc. okay, marka waa kana sida halkan kaaga muuqato cc-ga waxaa la waa qaybtan ayaa la dhahaa. hadda kuu soo dhaweeyo, aan hadda computer ma isticmaalo. macalinka muxuu computer u isticmaalayaa isliin, waayo dhammaantiin waxa u wada badanahay taleefano. sidaas alaala ajigeed ayaan taleefano ugu soo sameeyaa. marka muuqaalkan hadda cc-ga kan oo saaran yahay ayaa rabaa, midkan cc aa saaran, asigaa rabaa inaan ku dhufto. sida markaa ugu dhufto wuxuu iisoo saarayaa manage option ii soo saari doonaa. manage option markaa ku dhufatid, qaabkan ayuu kaaga soo bixi doonaa. labadan ugu horeyso off iska dheh. okay, labadan off iska dheh, kadib waxaa sameynaysaa save le dheh. wuxuu wareejinayaa iyo daqiiqada iyo wuxuu ku tirin doonaa waxyaalahaas adiga uma baanid. sidaas la mid ah midkan kale isagana ay saaran tahay. kadib manage isla markii automatically isku gey doono, kadibna off iyo off dheh, kadibna save dheh. markaa sidaas aad dhahdid, waxaa sameyn doontaa muuqaalkaaga waxaa ka fiirin doontaa optionkan copyright claimant-ga. waa qaybta lacagta uu ku tusinayaa, qaybtaas lacagta ayaa ka sameyn doontaa. markii oo maaragtay hadda labada muuqaal oo kusoo sameynay, waxaa ka ogaanaysaa markuu ka qaadmo sida optionkan oo kale ayuu ku noqon doonaa, oo cc ma lagugu heesan doono hadduu la yiraahdo. qaybtaas camal ku noqon doonaa insha allah. bal fiiri marka muuqaaladii inuu ka saaray in kale published tag. marka sida halkaas kaaga muuqato waa kina hadda waa kina muuqaalkeeda ayaan ku sameynaynay iyo muuqaalo kale, labadood way bedeleen maasha allah. kuwan hataa sidaas oo kale ugu qaaday. marka kuwan kale ay dhiman insha allah muuqaalka inaan kusii dheeraado ma rabo. fadlan waxaan ka codsan lahaa wadadii aan ku tagi lahayn 5,000 subscribers adana hana 100 qofood ayaa inooga harsan. fadlan waxaan ku leeyahay oo channelka rukumo oo subscribe inoo saar, sidaas la mid ah asxaabtaadana la sii wadaag oo muuqaalku sii share garay. haddii muuqaalkan ka heshayna la garay insha allah. tan inta kulmi doona muuqaal cankan oo kale waxaan idinkaga tagi doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. see you another next video. intaan kulmi doono muuqaalkan la mid ah, waxaa ku leeyahay waqtigaaga ka faa'iideyso.